inkastoo ay wali sii kordhiso dhibaatadii ka dhalatay caabuqa xanuunka faafaha daran ee COVID-19 kaasoo dunida oo dhan u geystay saameyn dhaqaale oo xooggan, balse dowladda Turkiga ayaa ku guuleysatay inay guud ahaan dhaqaalaheedu kobco soona jiito maalgashiyo badan oo shisheeye oo qaarkood ku sugan gudaha Turkiga halka kuwa kalena ay haatan tartan ugu jiraan sidii ay u maalgashan lahaayeen suuqyada dalkaasi, iyadoo isla waqti xaadirkan Turkigu uu noqday goob muhiim ah oo soo jiidasho gaar ah u leh maalgashatada siiba marka laga fiiriyo labada waaxood ee aadka u ballaaran ee warshadaha ganacsiga. sidoo kale waaxda beeraha ayaa 20kii sano ee la soo dhaafay guulo waaweyn oo la taaban karo ka soo hooyay dhinaca wax soo saarka dalagga beeraha ee ka baxa dalka gudihiisa, tanoo markii dambena soo jiidatay indha badan oo maalgashatada caalamka ah iyo kuwa maxalli ah oo Turki ah. waaxda beeraha ee dalka Turkigu waxay caan ku tahay kala duwanaanta iyo farabadnaanta dalagyada beeraha ee uu dalkaasi soo saaro, iyadoo ay ugu wacan tahay dhulka dabiiciga ah ee uu Ilaahay ku manaystay ee bacrimisan una sii dheer tahay shaqaale khibrad leh tiro badan oo u carbisan shaqada beeraha iyo weliba adeegsiga hababka tiknoolajiga ee ugu dambeeyay xilliyada lagu jiro waraabka. waxaana taa u sii dheer cimilada gobolada Turkiga oo guud ahaan aad u kala duwan, sahlaysana beerashada iyo weliba wax soo saarka noocyada badan ee dalagyada ah. haddaba 5 bilood ee ugu horeysay ee sanadkan waaxda beeraha ee Turkigu waxay markii ugu horeysay taariikhdeeda abid ay gaadhay heerkii ugu sareysay ee dhanka dhoofinta marka loo eego sanadihii hore, wuxuuna sare u kacay oo uu gaadhay in ka badan 11 bilyan oo dollar oo Mareykan ah oo ah korar dhan 18% marka loo barbardhigo sanadihii hore, taasoo ay maanta waaxda beeraha Turkiga wax soo saarkeedu ka dhigan yahay 13% wadarta guud ee dhoofinta badeecooyinka kale ee dalka sida qaybaha elektarooniga, hubka, badeecadaha yaryar iyo weliba xoolaha iyo dhammaan wax soo saarka guud dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. kaalinta sare ee dhaqaale ee uu maanta Turkigu ku dhex yeeshay qaaradda Yurub waxaa xoojiyay qaybta ama waaxda beeraha dalka oo sare u kacday ilaa 4% isla markaana dhaxal siisay inuu kaalinta koowaad uu ka galo dalalka Yurub oo dhan marka loo eego dakhliga ka soo xarooday waaxda beeraha sanadkii 2019 oo qiimo ahaan kor u dhaafaysa ilaa 50 bilyan oo dollar, halka waaxda beeraha ay sidoo kale kaalinta toddobaad ka gashay adduunka oo dhan isla sanadkaas kadib markii ay waaxdu soo xaraysay koror ama faa'iido 3.7%, iyadoo dhaqaalaha ka soo xarooda adeegyadan uu wali sii wado sare u kiciisa, wuxuuna ku socdaa si xawli ah sida ku xusan qiimeyntii la shaaciyay bilowgii sanadkan ee khuseysay dakhliga dhaqaalaha 3 rubuc ee Turkiga. si looga hortago awoodda kordhaysa ee dhanka beeraha Turkiga ee ku sii siqaysa Yurub, runtiina walaac weyn ku abuurtay wadamo dhowr ah oo Yurub ah. gaar ahaan arintan ayaa hadalhaynteedu badatay kadib markii Turkigu kaalinta koowaad uu galay Yurub ay wadamada midowga Yurub dhankooda bilaabeen isla markaana ay haatan ku adkeysanayaan in Turkiga wax soo saarkiisa beeraha laga reebo oo aan marnaba lagu darin wax ka bedelna lagu sameeynin heshiiskii u yaalay midowga ee ganacsiga iyo weliba kastamyada ee dhaqan galay sanadkii 1996. inkastoo dowladda Turkigu ay si isdaba joog ah u dalbatay in la cusboonaysiiyo heshiiskaas laguna soo daro cafinta kastamyada Yurub dhanka wax soo saarka beeraha, balse wadamada midowga Yurub waxay si joogto ah u diidan yihiin arintaas iyagoo aysan tilmaamin sababo lagu qanco ay u diidan arintani. si kastaba ha ahaatee dhaqaaliyahanada caalamka ayaa saadaalinaya in dhaqaalaha Turkigu uu rubaca saddexaad ee sanadkan kordhi doono 1.6%, waxayna dowladdu sidoo kale rajaynaysaa in dhaqaalaha sanadkan inta bilaha ka harsan uu kordhi doono oo uu gaari doono ilaa 5%, iyadoo laga duulayo horumarka adeegyada beeraha Turkiga iyo weliba iskaashiga ballaaran ee uu ka caawiyo dalal badan oo saaxiibadiis ah. haddaba wasiirka beeraha iyo deegaanka ee dalka Georgia Lefan Davitash ayaa tilmaamay in Turkigu ka mid yahay dalalka hormuudka oo ah wax soo saarka beeraha ee Yurub, waana mid ka mid ah 10 wadan ee ugu weyn ee horumariya adeegan. wuxuuna sidoo kale tilmaamay in Turkigu uu hirgeliyay xarumo wax ku ool ah oo khuseeya cilmiga beeraha. wasaaradda beeraha Turkigu waxay hirgelisay daraasiin xarumood oo isugu jira kuwa cilmi baaris iyo weliba mahadiyo, waxaana qaybaha kala duwan ee xarumahaas fursad u helay arday aad u tiro badan oo guulo waaweyn ka gaadhay dhinaca cilmiga baarista tiknoolajiyadda. inkastoo xanuunka safmareenka ah ee coronavirusku saameyn weyn uu ku yeeshay qaab dhismeedka dhaqaalaha adduunka, sidoo kale gaabiska iyo weliba kala go'ii ku yimid isu socodkii badeecooyinka ganacsi ee u dhaxeeya wadamada caalamka, haddana dhoofinta badeecooyinka Turkiga ee ugu horeeya wax soo saarka beeraha ayaa gaadhay 205 wadan oo adduunka ah sanadkii tagay ee 2020, wuxuuna Turkigu awood u yeeshay inuu sanadkaasi dhoofiyo 1982 wax soo saarkiisa beeraha, kaasoo soo xareeyay dakhli dhan 20.7 bilyan oo dollar. sanadkii la soo dhaafay Turkigu
wuxuu sidoo kale sare u qaaday oo sii laba jibaaray horumarinta dhinaca beeraha taasoo ka dhigtay wadarta guud ee wax soo saarkiisa mid gaarsiisa ilaa 120 milyan oo tan. arrintan oo diiwaan gelisay koror dhan 20% marka loo eego 2019 hoosna u dhigtay sicir bararka soo wajahay lacagta liirada ee Turkiga iyadoo qiimaheeda kor u qaaday ilaa 333 bilyan oo ahayd tiradii ugu badneed ee ay gaadho waqtigaas. dalka Turkiga ayaa kaalinta koowaad kaga jira adduunka wax soo saarka dalagyada beeraha qaarkood sida midhaha lawska oo 69% ah wax soo saarka adduunka oo dhan oo guud ahaan gaadhay 1.1 milyan oo tan, halka sidoo kalena 26% ay tahay wadarta wax soo saarka guud ee geedka sheeriga oo gaadhaya ilaa 2 milyan oo tan marka lagu daro dhirta kale ee qudaarta ah sida bardaha ama tiinka iyo waliba shamaamka. wuxuuna Turkigu sidoo kale heerka labaad kaga jira dhanka wax soo saarka qaraha iyo waliba qajaarka ee adduunka, sidoo kale heerka saddexaad ee dalalka soo saara tufaaxa iyo kan afraad ee strawberry-ga iyo waliba noocyada kale ee lawska. dhinaca kalena Turkiga ayaa kaalinta koowaad kaga jira adduunka dhanka dhoofinta burka ama daqiiqda iyo kan labaad ee dhoofiya baastada. sidoo kale wuxuu ku jiraa kaalinta saddexaad ee dalalka dhoofiya khudaarta iyo kan afraad ee adduunka ee dhoofiya khudaarta cagaaran. dowladda Turkiga ayaa doonaysa inay sii wado dadaaladaas horumarineed, waxayna haatan diiradda saaraysaa in waaxda beeraha ee dalkeedu uu ka mid noqdo 5 wadan ee adduunka ugu sareeya, waxayna horumarinta waaxda beeraha qayb ka tahay aragtida ama yoolka dowladdu hiigsanayso marka la gaadho sanadka 2023. sidoo kale xilli ay waaxda beeruhu tahay midda ugu muhiimsan ee gacan ka geysata kobaca dhaqaalaha Turkiga guud ahaan oo qiyaastii ilaa 50 bilyan oo dollar sanadkii hore uu gaadhay. dowladdu waxay qorsheynaysaa inay sii laba jibaarto horumarinta waaxda beeraha si dakhliga dhaqaale ee beeraha loo gaarsiiyo ilaa 150 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sanadaha soo socda. sababahaas awgood ayay dowladda Turkigu u qaaday tallaabooyin ay ku sahlayso isla mar ahaantaana dhiirigelin badan u noqonaysa maalgashatada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah si isku mid ah. bangiyada dowladuna waxay bixinayaan fursado badan oo fudud oo la xiriira dhanka deynta ay siinayaan maalgashatada dhanka waaxda beeraha sida bangiga Siraat ee Turkiga kaasoo si gaar ah loogu aasaasay hawshan tan iyo sanadkii 1863 xilligii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidoo kale taageerada farsamo ay bixiso wasaaradda beeraha ee Turkiga ayaa ka mid ah dadaaladaas lagu horumarinayo beeraha iyadoo wasaaraddu u marayso barnaamijyo sarsare iyo tababar ay bixinayaan khubaro iyo waliba aqoon-yahano takhasus u ah dhammaan dhinacyada beeraha. dhamaadkii sanadkii hore madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa tilmaamay in wax soo saarka beeruhu uu kobcay uuna gaadhay heerkii ugu sareeyay taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga, isla markaana isagoo waqtigaasi gaadhay 124 milyan oo tan, taasoo ka dhalatay horumarintii iyo waliba taageeradii la siiyay beeralayda. wuxuuna tilmaamay in xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee talada Turkiga haya ay dhiseen ilaa 423 dhaaman biyood ilaa 600 oo kanaal oo biyaha lagu kaydiyo muddo 18 sano gudahooda, halka sidoo kale la hirgeliyay 1457 xarumood oo waraab ah si loo horumariyo waaxda beeraha ee dalka. kadib dadaaladii dheeraa ee dowladda Turkigu ay 17 sano ee la soo dhaafay samaysay si looga gudbo caqabadaha hortaagan horumarinta iyo maalgashiga waaxda beeraha ee muhiimka u ah loona fududeeyo, waxayna haatan ku guuleysatay in tirada guud ee maalgashiga tooska ah ee caalamiga ah ee ka imaanaysa dhanka Turkiga ee la xiriira dhinacyada beeraha, cuntada iyo waliba cabitaanka, kalluumaysiga, wax soo saarka khudaarta uu gaadhayo ku dhawaad 10 bilyan oo dollar.